kuwani waa saddex nin oo walaala isla markaasina ka xanuunsanaya xagga dhimirka ma haystaan hooy iyo hanti waana saddex nin oo walaala oo ku nool degmada Wadaamago ee ka tirsan gobolka Saraar waalida waxa uu dheer duruufo adag oo nololeed ma haystaan hooy iyo hanti ay ka galaan cadceedda roobka iyo dabaysha telefishanka caalamiga Hon Cable TV oo kurgalay sidii wuxuu uga soo ogaan lahaa baahiyaadka ku gadaaman saddexdan nin ee walaalaha ah ayaa waxa telefishanka Hon Cable laga warbixiyay dadka deegaankani ku dhaqan isla markaasina gacanta ku haya saddexdan nin ee walaalaha waxayna dhammaanba muslimiinta ku kala nool gayiga Soomaalida iyo caalamka intiisa kale ugu baaqeen in la soo caawiyo alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaalayaal ummadu maanta runtii dadka waxaan ka damqada ama wax bixiya ama kaba damqada ee haddii alla ka dhigo ay taabato aad bay u yar tahay aad iyo aad ayay u yar tahay runtii waxqabadkuna tolliimadana maaha waxay sohaanshahana maaha damqashadu waxa weeyaan waa islaamnimada gaadee qaylinaya ee haddii alla ka dhigo aad arkaysaan barakallahu fiikum waxaanu aad idinka rajaynaynaa inaynu gurigana u dhammaystirtaan bacadkaas ayay ku xidhan yihiin meel roob laga galo male meel dhaxan laga galo male meel dabayl laga galo male meel haddii alla ka dhigo la hadhsada male si ay horta u hadhsadaan guriga in aad nala dhammaystirtaan oo ay kaga asturmaan dadka kaga asturmaan inaad nala dhammaystirtaan caafimaadkoodana nagala shaqaysaan maadaama ehelyadooduna dad waxaysta aanay ahayn oo lagu hadlayn karo iyo afar nin afartan ninba way tabaalaysan yihiin insha allahu tacaala annaguna waxaanu ballan qaadaynaa ilaahay agtiisa aanu ka ballan qaadaynaa wixii naloogu dhiibo ee na soo gaadha inaannu halka ay ku habboon yihiin dhigno waxaannu idinka baryaynaa inaad aad iyo aad noogu soo gurmataan waana saddex nin TV-ga Hon Cable ee isaguna na soo booqday sida khayriga noogu yimi ee ka duubaya wax isagana waa u mahad celinayaa waxaan soo booqanay maanta ilaahay nagu ilaahaneeyay inamadii xanuunsanayay aan dhex joognaa ilma Ciise Haaruun waxaan u sheegayaa walaalaha muxsiniinta ah wiilashan awal iyo aakhirba maxay xaaladooda la socday saacidayna ducana kala hakran xataa raka hakran inaanu wiilashii maxay ay aan tacabkooda wadno aan anaguna nacay guntanahay oo aan uga imaaday Hargeysa si aan dhakhtar u geeyo ma bogsanaa ku qaaqadahay maqlaysiin oo jeedin indhina idin macalina laakiin biin bilaa kariina tacabkeena qasaaran maayo wiilashaasi waxay doonayaan tacab fara badan lacag $900 baan iminka hayaa rabaan ku rajaynayaa insha Allah wararka telefishanka Hon Cable waxaan leeyahay qof kasta oo wax ku darsadana ilaahay agtiisa ayay u taalaa hadal iyo hanti namada dadaalkooda labada qof ee lambar 1 iyo lambar 2 ka kala ah ee aanay cid kale oo deegaanka ayba aanay iminka nagu wehelin waa Saare Warsame Diiriye iyo Maxamed Bilaa Xirsi oo loo xil saaray arrinkaas